habeen wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararka caalamka waxa ugu waaweyn dalka Kenya maanta ayaa dadku u codeeyeen doorasho madaxtinimo ku celis ah iyadoo ismarin waa siyaasadeed uu dalkaasi ka taagan yahay iyadoo la shaaciyay xubnaha hoggaanka sare ee Shiinaha ayaa BBC-da la siiyay waraysi ku saabsan sida ay tahay xaaladda xuquuqul insaanka ee Shiinaha Ugandana waxaanu idinka haynaa haweeney ninkeedu labada gacmoodba jaray oo imika gacmaha ay u sameynayaan samafalayaal dalkan Ingiriiska ah dadka Kenya ayaa maanta codkooda ka dhiibtay doorasho madaxtinimo oo ku celis ah laakiin waxa iska hor imaadaya ay ka dhaceen goobaha mucaaradku ay ku xoogan yihiin balse goobaha taageerayaasha xisbiga talada haya ayaa si weyn doorashada loogu soo baxay gudoomiyaha guddida doorashada Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay in doorashadu 4 goobood oo galbeedka dalkaasi ku yaala dib loo dhigay ilaa Sabtida Suhayba Maxamed Badqas ayaa la socotay wixii dhacay maanta oo warbixinta nooga soo dirtay waa calaamado walwal oo ka muuqda dal dhibaato ay ka jirto qalalaasa ayaa maanta ka dhacay goobaha ay ku xoogan yihiin mucaaradka taageerayaasha wadooyinka ayay xireen 100 mitir oo walbana dhagaxyo ayay ku gooyeen booliska iyo dibadbaxayaasha ayaa isweydaarsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo dhagxaan xaafadda Islii dhaqdhaqaaq badan kama jirin halkan aan ku suganahay waa dugsiga sare ee xaafadda Islii waa mid ka mid ah goobaha codbixinta ee xaafadan sida aad aragtaanna dad badan maanta ma aysan soo bixin si codadkooda ay u dhiibtaan markii loo barbar dhigo goobaha kale ay ku xoogan yihiin taageerayaasha xisbiga talada haya doorashadan ku celiska ah marka la fiiriyo waxaad moodaa in dalkan uu ku kala qaybsan yahay siyaasadda balse dadka qaar ayaa dareemaya in ay gudanayaan waajibaadkooda dastuuriga ah waan codeeyay waxaan codeeyay maxay ahayd inaan maaragtay codkayga aan la baxo waana la soo baxay codkaygii hadii la yiraahdo waxaan aad u rabnaa nabadgelyo buuxda inaan helno hadii la yiraahdo waan nabadgelyo ku joogno wadankan waxaan joognaa 25 sano 25 sano nabadgelyo aan ku joognay haddana waxaan rabnaa inaan nabadgelyo ku joogno hadii la yiraahdo dad badan ayaan sidaa qabin waxa ay ka walaacsan yihiin hanaanka doorashadan maanta ma soo codeynin sababtaan soo codeyn waayna waxa waaye aniga xisbiyaan taageersanahay marka codkii waa dhiibanay mar badan aan cod dhiibanay 27 inta dhaxdooda waa codeynay laakiin codkii cod soo baxaya ma waa meeshaada joog waa gurinin leey madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta ayaa guushiisii waxa laashay maxkamadda dalka ugu sareysa doorashadan waa mid uu u baahan yahay si uu sharciyad ugu helo dawladdiisa balse taasi uma badna in ay dhacdo waqtigan hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxa uu ugu yeeray codeyntan mid iska ciyaar ah ka qaybgal la'aantiisana natiijada way adag tahay in dadka dhan ay matasho goobihii codbixinta inta badan waa ay xirmeen balse gubaal la'aan siyaasadeed oo hor leh ayaa bilaaban doonta iyada oo ay u badan tahay in garsoorayaasha maxkamadda laga dalban doono mar kale in ay qiimeeyaan sax ahaanshaha natiijada doorashadan aadka loogu murmay Suhayba Maxamed Badqas BBC Nairobi waxa kale oo la hadalay maanta qaar kale oo iyaguna ka tirsan Soomaalida Kenya oo ku kala ra'yi duwan bal sida doorashadu ay tahay Nairobi ayay joogeen waxaan rabaa dadkaygi iyo dalkaygi inay nabad noqdaan oo ay nabad lagu soo dabaalo oo dawladda aan helno labadan bari oo hadda la sijiidaan rafaadnay sidaas darteed yani ugu khasabtay inaan u codeeyo marka waxaan u codeyn waay kulleey xisbiga aniga aan taageersanaa meesha kuma arko marka waan gurigeyga iska joogaa ganacsiga yarka iska furtay marka hadda wax dhibana ma jiro oo waxa caradu waa ammaankeeda sugan yahay laakiin wax hadda aan dooran kulleey kuma fikirina aan u fuutay xisbigan Jubilee maanta waan codeeyay sida fartiida ka arkaysaan waxaan u codeeyna waxay tahay waa xuquuq dastuuri ah oo lagu leeyahay maadaama Kenyan aan ahay codkana waa midka kaliya aad ku cabiri karto fikirkaaga maadaama dalku uu yahay dal dimuqraadi ah safarkii hore waa codeeyay haddana waa codeeyay aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala Kenya inay nabad iyo baraaro ku sii jirto ma aan codeeynin sababtaan u codeyn wayn waxa waaye ma u maleynayo doorashada inay tahay doorasho xor iyo xalaal ah sababta waxa waaye naasoo dhan doorashada kama qayb galayso marka hal dhinac kaliya sidee u dhihi karaa doorashan kaliya qabsanaya
marka waa fahmi kartaa in doorashada xor iyo xalaal ahayn oo hal dhinac kaliya wato that's the reason iminka waxaa toos u fadhiya stuudiyahayaga magaalada Nairobi wariyahayaga Raage Xasan Raage maxaa u dambeeyay caawa Nairobi bidan waxa u dambeeyay in goobaha codbixinta inta badan ay soo xirmeen iyadoo haddana ay si rasmi ah u socoto tirinta codadka doorashadan oo ay hareeyeen rabshado goos ah iyo sidoo kale qaadacaad ballaaran gaar ahaan dhinaca galbeed ee dalka oo aad ugu xoogan yahay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga gudoomiyaha guddiga doorashada oo saacadihii la soo dhaafay hadlay waxa uu sheegay in ilaa 4 deegaan oo ka tirsan dhinaca galbeedka dalka oo aan maanta laga codeyn doorashadooda dib loogu celin doona sabtiga mana cadda sida ay taasi ku suurtagali doonto iyadoo dadka aysan doonaynin sida ay sheegeen inay codeeyaan ilaa 3 qof ayaana la sheegay inay ku dhinteen magaalada Kisumu oo kaliya ilaa 30 qofna ay dhaawac yihiin kadib markii booliska iyo dadka isku dhaceen maxaa la filayaa iminka Raagow mar hadday doorashadii dhacday maxaa la filan karayaa iminka tirinta codadka ayaa hadda socota waxaana aad looga wardhoorayaa waxa ay ku dambeyn doonto arrintan waxay u badan tahay iyadoo musharaxiinta kale aysan aad u cusleen in Uhuru Kenyatta uu ku guuleysan doono doorashadan balse arrinta xiisaha leh waxay tahay oo aad looga wardhooraya waxa dhici doona intaa kadib Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo doorashada kol sii horeysa qaadacay sida Suhaybe sheegtay waxa uu doonayaa waxa uu aad uga warsugayaa arrintan isagoo laga yaabo inuu mar kale maxkamadda ku laabto wuxuu u baahan yahay inuu ku qanciyo maxkamadda in doorashadan aysan ahayn mid sax ah si mar kale loogu celiyo balse madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta waxa ka go'an in hore loo socdo laga gudbo wareegan doorashooyinka isxiga si uu u dhameysto mar kale hadii la soo doorto 5 sano ee soo socota oo ah markii ugu dambeysay mahadsanid Raage Xasan wariyahayaga magaalada Nairobi oo nooga waramayay wararkii ugu dambeysay ee doorashadaasi faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adiga oo ka galaya mobilkaaga bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta hogaamiyaha Catalonia Carles Puigdemont ayaa sheegay inaanu diyaar u ahayn doorasho degdeg ah oo gobolkaasi ka dhacda haddii aanay wili Madrid bixinaynin damaanad ay siinayso gobolkaasi aqalka guurtida ee Spain ayaa iyagu ka doodi doona faragelin ay dawladda dhexe ku sameynayso Catalonia kooxaha gooni-goosadka ah ayaa codsanaya in Catalonia iskeed madax bannaan ugu dhawaaqo hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ali Khamenei ayaa sheegay in dawladdiisu taageersan tahay tallaabooyinka ay Ciraaq doonayso inay ku ilaaliso qarannimadeeda iyo midnimadeeda hadalkan ayaa uu sheegay isagoo la kulmay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi oo booqanaya Iran ciidamada Ciraaq ayaa iyana sheegay inay duulaan ku qaadeen meeshii ugu dambeysay ku harsaneyd kooxda IS gubista meydka boqorkii hore Thailand Bujimale Abdullaji ayaa maanta ka dhacday magaalada Bangkok saaka ayaa baroordiiqda aasku bilaabantay iyadoo halkaasi ay wadaadada Buddhisku gadhwadeen ka ahaayeen 100,000 oo qof ayaa isa soo safay wadooyinka si ay boqorka u sii wadacaan waxaa shalay la soo saaray liiska guddida cusub ee golaha sare ee xisbiga shuuciga ee Shiinaha laakiin sidii caadada ahayd lama magacaabin mas'uulka bedeli doona madaxweyne Xi Jinping waxaa loo maleynayaa inuu qorshaysanayo inuu xilka sii hayo sanado badan BBC-da ayaa waraysi dhifah la yeelatay garyaqaan u dooda xuquuqda aadanaha ee Shiinaha wuxuuna faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay cadaadiska dawladda Qaalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya waxaanu guriga ka soo galay albaabka dambe si aanu uga dhuumanno sirdoonka kamana jirto Shiinaha shaqo ka xasaasisan tan garyaqaanada u dooda xuquuqda aadanaha Shi Yanyi waa qofkii ugu horreeyay ee ku dhiirada inuu ka hadlo dhibaatooyinka uu la kulmay cuntadiiba ii diideen hurdadiina way iga ilaaliyeen 6 bilood wax cadceeda maan arag tani waa ciqaab in sida lagu galo ayaa waxay ka xun tahay in jirdil lagu sameeyo oo lagu garaaco madaxweyne Xi Jinping waxa uu gacan bira ku hayaa awoodda dalka waana hogaamiyihii ugu awoodda badnaa Shiinaha tan iyo xilligii gudoomiye Mao dhibaatada qareennada xuquuqda aadanaha waa mid tusaale muhiim ah u noqon karta qaabka uu isticmaali doona awooddiisa sii kordhaysa Li Wansu ninkeedu waxa uu ka mid yahay qareennada weli xabsiga ku jira
wax akhbaarana kama ay maqal tan iyo markii la xiray 2 sano ka hor. waxaan u malaynayaa inay noqon karto sababtoo ah ma uusan qiran waxay leedahay muddada ay ku qaadataba inta uu qarinayo mar walba waan taageeri doonaa. dhaqdhaqaaq walba waxaa loo arkaa khatar mana aha oo keliya mid ku kooban mucaaradka ee waa mid ay la wadaagaan qareennada iyaga matala iyo qoysaska qareennaduba. inkastoo uu 18 bilood xidhnaa haddana Shi Yan-yi iyo qoyskiisu weli waxay ku jiraan khatar waxaana looga digay inuusan la hadal warbaahinta ajnabiga. waan ogahay inay naftayda khatar u tahay laakiinse waa waajib inaan hadlo oo aan ka hadlo runta. ma aqbali karno bulsho ku nool in dadka la xidhxidho oo layska xidho iyaga oo lagu haysto waxa ay caqligooda iyo fikirkooda ka keenayaan. waraysigayagii si lama filaana ayaa loo hakiyey. xaaskiisa ayaa noo sheegtay in niman badani ay ku soo urureen guriga hortiisa. markii aannu ka sii baxannay iriddii aannu ka soo gallay waxaannu weli maqlanay dhawaaqa codadkooda. bannaanka ayaannu kula kulannay iyaga oo na sugaya. qiyaastii saacad iyo dheeraad ayayna haysteen ka hor intii aysan na fasixin. mar ayaa jirtay layslahaa siyaasadda Shiinuhu way dabci doontaa marka uu dhaqaalaheedu koro laakiin rajadaasi ma aha mid noqotay sidii la filayey. wararka ciyaarahan caawa waxa ugu waaweyn kooxda Leicester City ayaa tababaro cusub yeelanaysa. Claudio Puel oo Southampton tababaro u soo ahaa ayaa 3 sannadood oo kontraad la siiyey. ninkan Faransiiska ah ayaa waxa uu hore u soo maray Monaco, Lille iyo Lyon. hooyo reer Uganda ah oo ninkeedu baangad ku weeraray kadibna labada gacmoodba uu ka jaray ayaa imika waxa loogu rakibayaa 2 gacmood oo cusub. koox dalkan Ingiriiska ka tagtay ayaa lacag u ururisay oo ka bixinaysa iyada oo la rajaynayo inay wax weyn u tari doonto. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa inala socodsiinaya. waa dhoolla caddayn ay ardayda jaamacadda Salford ay si xoog leh uga soo shaqeeyeen muddo sannad ah. Ninsima oo beeraley reer Uganda ah oo xanuun ku jirtay waxaa baangad la dhacay ninkeeda oo ka caraysnaa sababta ay u weydiisatay in qayb laga siiyo mirihii beerta uga soo go'ay. waxay weerarkaasi ku weyday 2 gacmood iyo dheg waxaana ay uurkiisa siday markaasi ilmaheedii 3aad. laakiin marka la eego maanta hay'ad samafal oo la yidhaahdo Salford ayaa maqashay waxa ku dhacay hooyadan iyaga oo ka hawlgala isbitaalka Campbell Mulago. waxay u ururiyeen lacag si mar kale ay u hesho farxad iyo rajo ah in carruurteeda ay korsan karto. waxay ahayd howl adag gacmo macmil ah laguma sameeyay Uganda marka waxaan isticmaalnay barnaamijka ardayda jaamacadda ee tababaranaya si aan ugu xirno shaqaalaha halkan Salford iyo koox dhaqaatiir ah oo Uganda jooga iyaga oo si wada jir ah u shaqaynaya. kuwa Uganda iyo UK ayay ku guuleysteen ugu dambeyn inay u sameeyaan gacmo ay ku shaqaysan karto. waxaan qayb ka ahaa hawsha dhinacan anigoo jaamacadda joogay sida darteed markii aan helnay gacmaha macmilka ah waxaan sameynay inaan wax ku kordhino waxna ka dhinno qaabkooda oo aan hagaajino si ay gacmaheeda ula ekaadaan. aad baan ugu faraxsanahay inaanu si sax ah u sameynay waayo waxaad aragtaa in markaanu qiyaasaynay ay qiyaasihii aanu qaadnay ahaayeen kuwo saxa oo imikana wax waliba ay isleeg yihiin. si kastaba ahaatee dhoolla caddaynta ka muuqata wejiga Ninsima ayaa wax walba ku sheegaysa. ugu dambayntiina caawa gaadhi sida loo sharaxay ma raaci lahayd. nin degan Ingiriiska ayaa gaadhigiisii sidan u sharaxay waxaana uu yidhi saaxiibadayba khaatiyaan iga dhigto kolba lahayd meelige dabeeta gaadhigiiba saasaan u rogay. sidaas iyo nabadgelyo waa ku mahadsantihiin daawashadiinna intaynu berri kulmayno waxaan idin leenahay bye bye.